وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي 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 halkani waa xaafadda Sheekh Muuse Ducaale ee degmada Koob iyo Soddonka May ee magaalada Hargeysa. Siday hadda indhihiinu qabanayaan waxa buuxdhaafiyay khashin loo maara waayay. Dadka xaafadani ku nool ayaa waxay sheegeen in ay cashuurta ku bixiyaan waaxda dawladda hoose ee degmada Koob iyo Soddonka May isla markaasina aanay maalinna ku baaqan. Balse dadkani waxay sheegeen in aanay haysan god ay ku gubaan haamihii qashinka lagu gubi lahaa iyo ciddii ka qaadi lahayd. Sidoo kale waxay xuseen in waaxda Koob iyo Soddonka May ee dawladda hoose kaliya ay u soo doortaan cashuurta oo kaliya balse aanay khashinkaasi ka qaadin. dadkan oo aanu ku booqnay xaafadda Sheekh Muuse Ducaale ee degmada Koob iyo Soddonka May ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in khashinkaasi loo maara waayay isla markaasina cid ka qaada aanay hadda haysan iyaga oo cod dheer ugu diraya baaq dawladda hoose ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa anigoo inta Sayid Maxamed oo ah goobtan halkan aan taaganahay ee xashiishka la dhigo goobtan xashiishka la dhigo malihin goob xashiish 18 mayna waanu nahay malihin goob xashiish lagu Koob iyo Soddonka May malihin goob lagu gubo malihin goob lagu rido xashiishka baabuur lagama qaado haamihii ma haysano marka waxa weeye waxaan doonaynaa in cashuurtii waa laga qaado waa gabareeba cashuur baa laga qaado meheradaha yar ku dhow baan nahay waa gabareeba xashiishka anaa guba oo gacanteeda ku guba marka waxa weeye wax xalaaliye wax cid wax naga qaadaysa cid noo imanaysa mid ma jirto waxaan ugu baaqayaa in naloo sameeyo goob xashiish noo sameeyo soo diro marka waxa weeyaan xashiishkana laga hagaajiyo waddan degmadan xaafadda Sheekh Muuse Ducaale marka xashiishka cid laga qaaday iyo cid wax noo qabataan ma jirto xashiishka saas uu tuuleeyay inta badan waa gudnaa gaarina ma hayno marka waxaan ka codsanaynaa dawladda sharaf sare in wax laga qabto xashiishkan iyo baabuur iyo wax soo diro xaafadana waxay toos tagtaa degmada Koob iyo Soddonka May يا أبغى ضمن ودوي كيسنا حول بون محنا تو حقي لا يعطي من دون Koob iyo Soddonka May ما ملاني أنا ساعات هاي قاعد واحد دونا وحنا قبضوا واحد حشيشكي شدلان دوي كيلو تو دتك دح دقيقين يبقى تبغى ضمن قاعد يستاين حافظ معي مجلس تقارين الله صدره يقبل الله عيمة من سونا مجلس أنا درا ناين وحنا قبضوا الله صدره بابور أما قبل لقوا قبر الله سميه سان تدوينه جيان الله وبركاته وحنا نهاي باشا Muuse Ducaale lagu naanayso daafuur lagu naanayso waxaad halkan joogno wada arkaysaan waxaan dhex taagan xashiish baan dhex taaganahay odayaasha waddanka meeshana waanu ka mid nahay waxaan doonaynaa wixii naga xoog raanay dawladdu wax nagala qabato lanoo keeno xashiishka meel aan ku ridno lanoo keeno gawaarida qaadaysa lanoo keeno inaan sidaas oo kale aan u baahannahay haddii allahu ilaahay sida khayrka lahayna waafajiyo marka haddaba ummaddu inay iskaashataa fiican oo iskaashato ona anaguna waxba la hadhin idinkuna aadna soo meel xashiishka aan ku ridno noo samaysaan ood gawaarida qaadaysana noo samaysaan waxaan ku noolay xaafadan ayaxto ama filuuja saad imika waa arkaysaan goobtan waa goob qashin quba waxaan ku leeyahay meeradihii waxaan ku leeyahay cashuurta laga qaaday waxay u jiraan waxaan ka yaray 5 talaabo سادرتي waxaan codsanaynaa in loo keeno meelii qashka lagu shubay ama iskargooyinkii xaafadaha soo maray sanitation-ka waaxdan degmada Koob iyo Soddonka Mayna waxay warkaas saacado jirto waxa ku leeyahay saadirtii waxaan codsanaynaa goobi qashka lagu shubay la keeno soo dhaqsada maadaama cashuurtii waxa ku leeyahay deeliga laga waxa ku leeyahay xaafadaha way balaaran tahay saadirtii imka inta ay xaafadu taqaalaana waxa ku leeyahay 14 sanadood wax gaariyo xashiisho soo maray iyo wax kala midna ma hayno saasi darteed waxaan ku codsanaynaa waxa kale mas'uuliyiinta qusayso caafimaad darro ayaa ka dhalan doona saasi darteed waxaan doonaynaa in si ugu dhaqso badan ama gaariga dadka ka ururiyaan ama goobi qashka lagu shubay sidii laga qaadi lahaa ay noo keenan saasi darteed ayaan codsanaynaa maadaama bulshada xaafadda ka mid ahayn horeyno arrinka waxaan u sheegnay dadkan cashuuraha ururiya ee waaxda ka tirsan Koob iyo Soddonka May ma ku nuni
waar dadka ka soo gaaro weli haddaana wax jawaabo aanu ka haynaa ma jirto haddii cashuur bay xaafadda usoo doontaan saa darteed waxaanu codsanaynaa in waxana laga hagaajiyo maadaama ay waxa kuleeyahay waddadii waxa weeyaan ibraahim maxamed xuseen oo degan xaafadda sheekh muuse ducaale waxaanu ka caawinaynaa halkan ugu soo jeedinaynaa dowladda hoose iyo xukuumaddaba inay wax ka qabtaan xaafaddan waxyaabo fara badan u baahan tahay sida xashiishkan wadda xumo oo aan xaafadaan wadda lahayn waxaan doonayo MCHyo caafimaad in laga furo oo xaafaddan bal si gaara loo eego waxa weeyaan dad badan baa ku nool xaafadda oo ilaa iyo masallaha sheekh cumar faluuja habeenka keliya gaadho habeenka markuu roobdo waddada ma mari karto baabuurta oo waddadu way go'an tahay waddo male caadi ah oo la mari karo xashiishku goob walba uu buuxdhaafiyey dadka cashuur baa laga qaadaa kun laguma dhaafo cashuurta laga qaaday dadkaasi waa inay ku helaan xaqii ay ku lahaayeen dowladda ama dowladda hooseba waxaa tagtaa 31 May marka waxaanu codsanaynaa haddaan nahay xaafadda sheekh muuse ducaale in naloo sameeyo godkii aan ku iskaga gur lahayn xashiishka waayo waxaa ka dhalanaya caafimaad darro xanuuno aan hadhow la daweyn karin